إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal muxaadarada ama kelimadda aan meesha isugu nimid waa kelimad jazaahum allahu khayran dadkii ka soo shaqeeyey iyo dadkii bilaabay iyo dadka soo waday intaba ajar fara badan uu uga socdo. waana arrin aada iyo aada u wanaagsan soomaalidu inay leeyihiin community iyo dad isku xiraansho. meelo badan oo hadda dibadahana way ka sameeyaan. halkan qadar dadkii soo aasaas dadkii soo sameeyey intaba ajar fara badan baa uga soo jazaahum allahu khayr. muxaadarada iyo muxaadarooyinkana waxaa aada iyo aada u habboon inay mar walbaba cinwaan leeyihiin baarisa ama cinwaan aada iyo aada muhiim u ah. sida shiikhu uu sheegay jazaahu llahu khayr, yacni mowduuca caqiidada in la rakisana waa mowduuc aada iyo aada u muhiim ah oo aada iyo aada u wanaag badan. shiikhuna jazaahu llahu khayran mowduuca laba ahaan ayaa loogu talagalay, laakiin wixii dhammaaba isaga ayaa iska fuuqsaday sidii la odhan jiray. bal yacni xusnu tamhiilkiisa iyo tartiibtiisa iyo kaannahu maa sha allah tilmiid ibnu cabaas baad u malaysaa. laakiin anigu maadaama ay laasim tahay inaan hadlo, waa mawaadiic caqiidada ku saabsan baan jeclahay wax yar bilikhtisaar inaan dheereeyana ma jecli. maxaa yeelay salafkii waxay odhan jireen majlisku ma dheeraado ilaa lishaydaani fiihi yacni nasiib. haddii majlisku dheeraado shaydaanka ayaa dadka wax soo geliya, waynugu dheereeyeen waynugu kada waxyaalo badan baa soo gala. marka sidaa daraad inaan soo koobaan jeclahay insha allahu. caqiidada siduu shiikhu sheegay jazaahu llahu khayr waa aasaaskii diinta. camal kasta iyo wax kastana hadduusan asaas lahayn, asaaskii iyo meesha ku binaysnaa wuxuu noqonayaa guri la dhisay oo aan asaas lahayn. guryaha marka la dhisahayo meelahan waxaan aragnaa in badan god dheer inta la qodo in maaragtay biro iyo lasoo geliyo. meelaha qaarkood sida reer galbeedka oo kale markay guryaha dhisanayaan aasaaska intaasoo bilood baa la dhisaa, ilaa 6 bilood ilaa mataqaanaa muddo dheer baa laga soo shaqeeyaa. markii aasaasku dhammaadana inta kale waxaa lagu taagaa, waxaa laga yaabaa guri iska jaahis ahaa in 4-5 beri lagu dhammeeyo, gurigiiyo looxyasa inta la isku rarakibo. marka waxaad arkaysaa caqiidada muhiimkay siinayaan aasaaska caqiidada ah. caqiidada maxay tahay? caqiidada adduunyada. maxaa yeele dadka reera adduunyo weeye soo ma. adduunyada sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu sheegay yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun. aakhira ma leh. adduunyada marka sida loo dhaqdo iyo sida loo susubko iyo sida loo habeeyo dadka kale way ka yaqaaniin. yacni way ka badiyaan dadka muslimiinta in fara badan oo adduunyada ka mid a. sidaa daraaddeed aasaaskii yacni way ku dadaaleen. innaga marka aasaaskeenna rasmiga ah haddaan dad muslimiina nahay waa caqiidada. caqiidadu hadday noo hagaagto wax walbaa waa noo hagaagayaan, xataa adduunyadeenna way hagaagaysaa. waxaad ogtihiin walaalayaal caalam alislaami taariikhdiisa haddaad dib u raacno, casrigii ugu fiicnaa oo taariikhda islaamku ay ugu wanaagsanayd, yacni asxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam la noolaayeen iyo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo casrigii ku xigay quruuntii 3 ahayd oo nebigu sheegay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum, kuwa ayay ahaayeen. quruuntaasna waxay ku guulaysteen oo ay ummadihii waagaa la noolaa oo xoog badnaa ka xoog badnaa ay uga guulaysteen. sida haddaad taariikhda akhrisaan a arkaysaan ghaswatu maalan muxuu ahaa yarmuuk oo kale markay furus la dagaalamayeen, yani ruum markay la dagaalamayeen asxaabadii, inay ahaayeen cadad yar oo 10,000 iyo ka yar ay qaabilayi jireen 100,000. maxay ku qaabilayaan? caqiido ayay ku qaabili jireen. caqiidadooda ayay ku sugnaan jireen. taa ayaana alla ugu gargaari jiray subxaana wa tacaala. in badanna ilahay qur-aanka waxaa ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum. in tansuru llaha macnaheedu waxa weeye inaad caqiidada sugtaan, camalkana markaa wuu hagaagayaa tilqaa'iyan, camalkiina hagaajisaan. alle wixii uu idin amray aad la timaadaan siduu idin amray,
wuxuu idinka reebayna aa ka reebtoonaataan alle subxaanahu wa tacaala aslulcaqiida caqiidada asalkeeda yani marka la tacriifinayo waxaa laga yaabaa inay caqiida caam wax allaala wixii la ictiqaadiyo yani alxukmu aldihni aljaazim ayaa lagu tacriifiya yani xukumka dihniga maskaxda oo go-aanka oo rasmiga qofku waxa maskaxda uu ka ictiqaadsan wax camala ma ahan oo salaad iyo uu la imaanayo dhaqdhaqaaq u samaynayo go-aanka rasmiga oo maskaxdiisa uu ka go-aamiyo sidaasaa la yidhahda hadduu marka sax yahay go-aankaasi oo waaqaca waafaqsan yahay iyo dhabti waafaqsan yahay sida alla waaxid oo kale weeye caqiido saxiixa oo islaama weeye haddii uu ku binaysan yahay go-aankaasi qalad sida alle waa saddex oo kaleeto tahliith caqiida tahliith ama alle maaragtay waa isagaa koonkan sameeyey laakiin cid kalena waa la samaysay wax la mida oo kale taas waxaa la yidhahda caqiido faasida marka caqiidadu caqiido saxiixa iyo caqiido faasida ayay u qaybsantaa towxiidka iyo iimaanka labadaasna islaamka ayaa khaas la ah towxiid macnihiisu waxa weye alla la keli yeelo subxaanahu wa tacaala oo cibaadada lagu keli yeelo saddex ayuuna u qaybsamaa culimmadu sida ay istiqraac markay ku sameeyeen raacraacid saddex ayay u qaybiyeen towxiid aluluhiya iyo towxiid alrububiya iyo towxiid alasmaa'i wasifaat towxiidu alrububiya maalan haddaan ka bilowno towxiidu rabbi mana ahan arrintaani dadka qaarkood siday yidhaahdaan oo kaleeto ilaah baa la qaybinayaa ama kada la ama maaragtay la dhahayo arrintan xaggee u daliila waxaa u daliila qur-aanka in fara badan ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaan yani taraaduf asmaada ilaahay kaad allaala ayamaa tadcuu falahu lasmaa'u lxusna marka asmaadiisii oo subxaana wa tacaala tiro badnaayeen qeyb ka mida ayay culimmadu ku kala qaydeen maxay ugu qaydeen kelimatu rabbi macaani fara badan oo asmaada ilaahaya iyo sifaatka ilaahaya soo gelaya kelimatu ilaahna macaani fara badan baa soo gelaysa marka saasay kusoo ururiyeen oo isugu koobeen oo u qaybiyeen towxiid aluluhiya towxiid arububiya towxiid alasmaa'i wasifaat towxiid arububiya alrabu macaani fara badan buu ku yimaadaa bimacnaa yani khaaliq bimacna almurabbi allihii rabaynaya wax soo tarbiyeynayey bimacna asayid bimacna almutasarif bimacna almaalik allihii mulkinayay intaaso dhan ku yimaadaa towxiid arububiya qul acuudu birabbi nnaas baa u daliila qul acuudu birabbi nnaas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allihii koonka o dhan sameeyey marka macnihiisu waxa weeye alle inuu khaaliq yahay oo koonka oo dhan sameeyey cid kale aysan la samaynna ogaatid inuu koonka ku tasarufahayo oo isaga keligii uu ku tasarufayo cid kale aysan la maamulaynin cid kaleta aysan wax bixin karin cid kale wax allaale wixii la bixiyo ilaahay baa bixiyey subxaanahu wa tacaala sabab waxyaalaha qofku awoodo caadigaa sabab waa u noqon karaa laakiin mar kastaba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qadaray ilaahay baa qoray ilaahay baa dhigay marka towxiidu arububiya alla inuu khaaliq yahay laa khaaliqa laa raasiq laa kada ilaa inuusan cid kaleeta aysan jirinin qaybta towxiidka noocaasa waxaa la yidhaha gaaladii waagii nabiga joogta calayhi salaatu wasalaam iyo gaalo fara badan way ogaayeen way la socdeen maxaa yeelay way qirsan xataa waxaa la yidhaahdaa in bani aadanka jaxdi la timid sida shuuciyadoo kaleeto iyagoo yacni og wixii inkiraya waxay soomaalida ku magacowdaa jaxdiga waxa la yidhaahdo iyo inkiraadda noocaasa kiis iska waal yacni qofkii inuu maaragtay isagiyo wixii og uu yani isdiidsiinahayo oo is-ilowsiinahayo sida shuuciyadii iyo sidaas ay ahaayeen dad asalkoodii yuhuud iyo kasoo diin lebay ahayen marka diimaha aan la dagaalano bay ku heshiiyeen si aanu maarata wax kale usoo saarno naga naloo raaco meesha nebiyada iyo kaniisada iyo waxbaa dhibay saasoo kale camal marka dad badan oo kiiska iska waalaya sida maalan qoladaas shuuciyadda zamankeenaan hadda joogno iyo soo dhowaaday waktigii hore nebiyullaahi muusa waxaa la noolaa fircoon oo yidhi anaaba carrada ka ilaaha dad badan oo kale ilaah lama sheegtayna way jireen laakiin isaga ugu mashhuursan ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu rumaysnaa alle subxaanahu wa tacaala oo wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa kibir iyo edabdarro unbuu u diiday ma ahan alla wuu rumays laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalard basaa'ir waatuu sidaa ku lahaa nabiyullaahi muuse waatuu ku yidhi marka wuu rumaysnaa alle subxaanahu wa tacala wamaca dalika yacni isdiidsiin iyo kibir iyo isla weynan ayaa u diiday inuu maaragtay alle subxaana wa tacaala qiro sidaa daraaddeed gaaladii laakiin waagaa joogto way rumaysnaayeen waxaan uga gol leeyahay intaas haddaan soomaali nahay yacni alle inuu koonka sameeyey cid kale xasana waa la ogyahay laakiin waxyaabo shirki ay uga dhacdo soomaalidu baa jirta
xagga rububiyada waxaa ka mid a tasarufka marka lagu tasarufahayo yacni koonkan tasarufkiisa yaa iskale allah iskale subxaanahu wa tacaala haddii aad tasaruf koonka rabtidna alle waa inaad weydiisataa keligii laakiin annagu waxaan soo galay magaalada muqdisho la yidhaahdo annagoo xer ka ah oo aan maaragtay meel aan masaariif noo saaranta aysan jirin inna la oran jiray qabriga sheekh suufi haddaad tagtaan magaalada tasarufkeeda dhan waa laydin furaya marka tasarufka inuu ilaahayna hayo awliye iyo dad kale la leeyihiin sidaasoo kaleeta camal baa in badan mataqaanaa dad badan ictiqaadsanaan jiren arrintaasna waa arrin khatiira oo khatar jiddan ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala lala maamulo koonka waa arrin aad u xun gaaladii waagii nebiga joogtay xataa yacni aad uma ay rumaysnayn bal waxay rumaysnaayeen waxyaalaha khatarta ah oo badda iyo markay ay dooniyaha iyo waxyaalaha in la qarqadaan ka baqaan waxay u iilan jireen alle subxaanahu wa tacaala keligiis laakiin dadka waayahan jooga xataa soomaalidoo kale iyo markii badda xoogaa ay wax dareemaan ama diyaaradda iyo ay xoogaa la liicdo ama gaarigu la saalteeyo waxaa laga yaaba inay sheekh cabdulqaadir oo yidhaahdaan arrintaana waa arrin khatiir ah oo shirkigii shiikhu ka sheekeynayo khatarta badnaa ayay soo gelaysaa caqiidadana meel weyn ayay uga dhacaysaa waa arrin aad iyo aad khatar u ah calaa kulli xaal tawxiid rububiya in la sugo qofku oo shirkiga shirki rububiya la yidhaahdo uu iska ilaaliyo oo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay uu u sugo qeybka uu u sugo inuu wax walba alle subxana wa tacaala og yahay inuu kada intaas oo dhan waa shay waajiba oo daruuri ah oo asaasu alcaqiida ah tawxiid aluluhiya haddaan usoo dhacno waxa weeye alilaah macnihiisu waa maxay alilaah المعبود وهي المألوه كي وحوية يعني لعابديي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سمدا يمارت يقولك الله وضع اللي معبود ككوها ولو عابديي الله سبحانه وتعالى مرك الإله معنيه سوى مألوه الله سبحانه وتعالى وكيل عابديي سبحانه وتعالى إسجع أيانا أمري عبادة بني آدم ك يعني جني إنسي بمخلوقات كان wuxuu u samaystay inay caabudaan subxaanahu wa tacaala cibaadada macnaheeduna waxaa la yidhaahdaa waa yacni shay kasta oo ilaahay uu jecel yahay oo uu amray inaad la timaadid shay kasta oo kaa reebayn inaad ka reebtoonaatid taa ayaa cibaado la yidhahda taa shayga aad ka reebtoonaanaysid waa inaadan uga reebtoonaan sidii maalan zinadii iyo shirkigii iyo xaaraantii iyo waa inaadan uga reebtoonaan shayga ama maaragtay ceeb kuu keenaa amuka la ilaahay daraaddiis waa inaad uga tagtaa shayga alla makaa reebay alle daraadii subxaanahu wa tacaala aslu muxuu ahaa caqiidada aan ka hadlayno ama macnaha ta'liiha ama caabudidda waa qalbiga ayay ka soo baxdaa naabac ayay ka tahay oo tacdiimka alle subxaanahu wa tacaala ayaa ugu horeeya ina alle qalbigaaga ka weynaysid alle qalbigaaga uu buuxiyo qalbigaaga tacalluqa bani aadanka aad ka saartid waxyaalaha tacalluqa aad ku bani aadanku ama hebel baa wax ku siinaya hebel baa wax ka rabaa hebel baan kadaa hebel baa wax ku tari kara hebel baa alkhawf cabsida alle keliga ka cabsatid alrajaa alle keliga aad rajaysid atawakul alle keliga aad ku kalsoonaatid tawakulku waxa weeye shaygii sababtiina la imow shaygii muxuu ah la imanaysay oo asbaabtii lagu amray shaqadii iyo kadaa la imow inaysan shaqadan iyo arrintaani aysan ahayn tii rasmiga ahayd oo iyada keli wax ku siinaysayna inaadan ictiqaadin weeye dad badan baa halkaas waxaan aragnaa oo laga yaabaa soomaalidu inay dad badanba ku dhaamaan oo halka caqiidadoodu aad uga khaldanto oo maxay ictiqaadinayaan shaqadan hadduu waayo inuu mataqaan dhimanayo sidaasuu aaminsan yahay markaas waxay ku leeyihiin qadcu yani acnaaq walaa qadcu arzaaq yani risqiga naga ha goynina laakiin qoorta naga gooya taasoo kale camal muxuu ka wadaa risqiga ha naga goynina yani shaqada ha iga cayrinin shaqada hadduu ka tago wuxuu u malaynaya inuu dhimanayo hada khata waa arrin aad u xun maxaa yeele ilahi subxana wa tacala isaga ayaa yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun inay caabudaan ma wax kale ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق سماه ذو القوة المتين الله أي الرزاقة سبحانه ولا رازق إلا الله لا وحكمت هاي توحيد الربوبية عن سكس هذا الله مركو أين قفك الساعة اعتقادية والله سبحانه وتعالى توكلك هي سوى أسباب تلا إيمان يانا كالسوني دي الله سبحانه وتعالى الله عظمتي سمرك قفك قلبك سكوه انتهي توكل أيها ليا وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مركو حاصل waxay kamid tahay cibaadada khawfka cabsida rajaha khawfka cabsida oo kale khawfka dabiiciga lama diidana مثلا qofku inuu asadka ka cabsado libaaxa bahallada kada qof inuu dilo ka cabsado khawf dabiici la yiraahdaa laakiin khawfka adag waxa weeye khawf sir waxa la yiraahdo adoo meel iska jooga xasinaadahay
ama wax kale ku dilaan ama jin ama kada oo aan wax caadi oo muuqda ahayn aa ka cabsanaysaa ama qofkaas hebel ah oo maalan sheekh hebel oo kale ama mataqaana qoorta kaa gooyaa seef kugu dhuftaa kada wax saas oo kale taaba ka cabsanaysaa khawfkaas oo kale alle kaligiis ayaa la keliyay cid kale inaad ka cabsatid ma ahan alle subxaanahu watacaala waa inaad sidaa ugu kalsoonaataa waa inaad tala saarataa wax walba adoo la imanaysid waa inaad ogaataa alle hadduusan dhammaystirin inaysan kuu dhammaystirmaynin tawakul iyo tawaakul wax la yidhahdaa kala jira yani tawakulka waa kaan ka hadalay tawaakulkuna waa qofku inuu yidhaahdo duurkaan iska gelaya oo masjid baan iska fariisanaya allah samada wax iga soo ridaya sababtii aadan la imanin soo ma waa arrin qalada ninba yani mararka qaarkood xoogaa in la isbaraarujiyo si dadka hurdada uga kacdo waa fiican tahay ninba waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan samaynayaa tawakul duurku iska galay marka yani wuu dhiman gaaray marka waxaa soo mareen awr raran oo muxuu ahaa yani safar baa soo martay isagoo nafta kasii dhici rabto markaasuu yidhi haddaan u qayshado tawakulkii baan khilaafaya wuu iska aamus adigu markuu mar labaad ay safar kale soo marto mid kale soo martayoo tii ugu dambeysay is yidhi hadda xaaladii ugu dambaysaa maraysaaye haddaa hadashidna tawakulkii bay khilaafaysaa marka tanaxnux buu sameeyey tanaxnux ma taqaanin buu yidhi marka tanaxnux buu la yimid marka ayay kusoo leexdeen oo dadkii quudiyeen oo la dhuunyay oo xagga la celiyey markaasaa dadkii warsadeen lagu soo yaacay sheekhu tawakulkii bal natiijadiisii ka waran tawakulku wallaahi waa fiican yahay buu yidhi atawakul jayid walaakin bardo atanaxnux jayid buu yidhi tanaxnuxna waa fiican yahay buu yidhi soo ma marka sidaasoo kaleeto inay arrin tawakulka qof ka noqda ma aha qofku hadduusan yacni alle subxaanahu watacaala cadamadiisa iyo aysan ku weynayn waxaa laga yaabaa inuu inhiyaar fara badan hadduu khasaaro meel wax ku khasaaro waxaad aragteen gaalada yani siday u intixaaraan sida ay kadaa u sameeyaan aad bay u fara badan tahay maxaa yeelay wax yar uma adkaysan karo laanna ilaahay subxaana watacaala kuma kalsoona qadartiisa ma aaminsana ilaa aakhirihi calaa kulli xaal tawxiid uluhiya waa qeybta labaad tawxiid uluhiya waa kii nebiyada yani kan lala soo bixiyey nebiyada alle oo dhan alle wuxuu usoo diray nebiyada shiikhu waatuu ka sheekeynayay walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasul an icbudu allaha alle keliga caabuda hal midaa la socota ama laba rukni buu leeyahay tawxiid aluluhiya rukniga koowaad waxa weeye alla caabuda kan labaadna wajtanibu daaquudka ka fogaada waxay kaloo ku salaysan tahay laa ilaaha ila allahu laa ilaaha waxa weeye waa muxuu ahaa waa wajtanibu daaquut nafyigii weeye soo ma nafyi iyo ihbaat labada rugni bay leedahay ila allaahuna wa ucbud allah waxdah alle keliga caabuda nabiyullaahi ibraahim markuu tawxiidka laga sheekeynayo shirkiga iyo isaga ayaa ugu horeeya oo lagu miaaliyaa yani in fara badan waatuu ku lahaa ilaahay subxana wa tacala quraan waid qaala ibraahim inanii baraaun mima tacbuduun waxaad caabudaysaan waa laa ilaahadii ila aladii fataranii sow ma ila aladii waa istinihi ila allahu dii wey ila aladii fataranii allihii abuuray maahane fainahu sayahdiin marka tawxiid aluluhiya waa kii nebiyada dhan alla uu la soo bixiyey subxaanahu wa tacaala waa aakhirada waxa ugu horeeyo la isweydiiyo maadaa kuntum tacbuduun bani aadamka markii kulli lasoo shiriyo iyadoo oo gaalo iyo macnaa ummadihii oo dhan ummadihii nebiyadoo dhan iyagoo joogaan waxa ugu horeeyo la isweydiiyo maadaa kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen iyo maadaa ajabtum almursaliin iyo maxaad rusushii ugu jawaabteen labadaas su-aalood baa baarisahoo bannaanka yaalla oo muxuu ahaa aakhiro la isweydiiyaa maxaad caabudi jirteen marka dadka waxaa jira qaar caabudi jiray shams faman kaana yacbudu shamsadii u aadaya qoraxdii waman kaana yacbudu alkawaakib buu aadayaa waman kaana dad fara badan oo dadka waxaa iska jira wixii ay la dhacaan ama wixii la qurux badnaa ama wixii la weynaado adduunka iska caabuda soo ma dad baa hindiya dhowr boqoloo muxuu ahaa ilaah baa laga caabudaa ilaa 300 ilaa 3,000 in hadda gaaraan baa laga yaabaa marka qaar baa intay u bogeen يعني لقضان عنها له ومرة هلب كذي العناية ومرة لمالايو بينتناب إلهية يدا سي عابدان بس هما مركا هذا آخر مركا اللي هذا قفل باوح عابد جران راعو بإلهي لي هاي مركا دتك الله عابد جران سبحانه وتعالى إلهي ومدنا مركا إيمان يسوى النبي عليه الصلاة والسلام يضو فيها منافقوها حي لي يعني ساس ظاهر كا إن الله عابد جران بعد يغلفت وضعه على كل حال وعبادة أما التوحيد الألوهية وكم كواد oo Allah subhanahu wa ta'ala nabiyadiisa uu la soo bixiyay waa kan dadku ku kala tageen oo gaalo iyo muslim ugu kala baxeen waa yaani shayga asaaska oo la ilaaha illa Allah
تفسير كذي لا إله إلا الله نسي الشيخ شيء يعني ومفتاح الجنة لكن مفتاح الجنة مركي نقول سلف كيا لويديي سو لا إله إلا الله مفتاح الجنة الغفر تصومها خلاص قف كستادو مركو يرادو وإنه إسكا جلا الجنة مرك سداس ويبير ما يا شيخ وسام ما هم بير أرنتي شيخ لويديي سلف كها حسن البصري ولا شيء غير كيس وحيري maxay mar qof walba ugu furi weyda u gali waayay dadka qaar baa naar galay ilaa ilaa oranaya saas uu ninku weydiiyay sheekhu wuxuu yiri sida ma ahan miftaax la ilaha illa allah miftaaxul janna weeye laakiin miftaax kastaaba wuxuu leeyahay asnaan sooma ilko wax ku furu leeyahay sooma ilkaheedii maxay yihiin la ilaha illa ilkaheedii waa amalki saalixa la imanayay oo aqeedadu ay lagu aqbalayay daraadeedna xaqida la'aan amalka saalix aan la aqbalaynin aqeedadu asaaska u ahayd wixii koro oo daahirka ahaa muuqdayna muxuu yahay waa amalkii saalix ahaa marka laa ilaha illa marka tiraahdid oo qalbigaaga ay ku weynaato aqeedadu waxay ku noqonaysaa baacif kii kugu bixinaysa amalka saalixa munkarkana ka reebaysay yani baacifkii ilaahay subhanahu wa ta'ala markii qalbigaaga cadamadiisu ay ku weynaato wixii uu kufray baa kula weynaanaya ما كسيحانيسيد صلاة فجرك سكستو هبينك حتى أسو جديد وتكون داليسا يعني مهما كلف الأمر وحيالا حن الزنا كذا إيو منكرات كل عميسيد شرك كل عميسيد الله غيرك بري ميسيد الله غيرك ولا إيمان ميسيد عملك على إيمان أغرغرحين ميسيد بني آدم كشرك الأصغر كي كل عميسيد وحيالها صدواتك إلى الناس مركي الله سبحانه وتعالى عظمتيسا يوينك قلبك وكون يهي باعث بيكون نقنيسا عملك صالح هو بحنيسا ما بقى قفك عملك وقت النبي عليه الصلاه والسلام صحابه مركي ويديان ولا هاي هدي مره وحول بابا كلا قراي وقف والبا جنده مد بابا لقدري فيما العمل مركاسي وحيري النبي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له عمل فلا قف والبابا الله ويسيريا وحي ابوريه مركاسي اصحابي وحي راسي سراق بن مالك وكلا في بعض الروايات يعني حديث لو حديث خلافا بها نقطه لكن معناه وسوافقيا ويري ان والله لا هلي ميسيد هذا ان عمل كسي عمل فل بدن هاي ما هنه مر هدان سيده ان اوغاداي marka in yani waxaan ka fahmayaa uu leeyahay in ilaahay anigu iga dhigay dadkii maadaama hadda amalka Allah dadkii wanaagsanaa oo Allah uu yasirayo kaleeto marka haddaan si fiican u sii amal falaya arinta maxaa marka ku bixinaysa oo ay saa ugu dadaali jireen asxaabadii iyo aqeedada qalbigooda ku jirtay way Aisha ayaa sheegtay fi sahih al-Bukhari sa ku sugan waxay tiri kaana awwal ma nazala min al-Qur'an yani quraanka intii ugu horeysay soo degtay waxay ahayd suwar ama yani suurada gaagaaban oo kamida min al-mufassal suwar min al-mufassal fiha dhikru al-jannati wan-nar suurada mufassalka kamida yani subca khamiisada aan raano yani qaaf laga bilaabo inta ka hooseysa oo ay ku jirto naartii iyo jannadii looga sheekaynayo ayaa soo degay baylaada Aisha markii qiyaamadii iyo jannadii ay dadkii jannadiina u hiloobeen oo jeclaadeen naartiina ay aad uga cabsadeen qiyaamadii iyo qalbigooda ay gashay marka kadib baa Ilaahay wuxuu soo dajiyay yani khamradii xarimay oo zinadii xarim xaaraanti haduu nabigu markii u horeysa ka bilaabi lahaa dadka khamrada sida dadka hadda qaarkood meelaha qaarkood dhahaya shariicadan xukumayna oo kale laga yaabo inay waxyaalaha adag oo gacan gooyn iyo dadka uga bilaabaan laga yaabo sidaas oo kaleeto hadii nabigu ka bilaabi lahaa bay leedahay maxaa Aisha ay leedahay khamradu waa xaraan zinadu waa xaraan war waxba xaraan ma hor naga tag bay ku oran lahaayeen ma taqaan sidaas dadku oran lahaayeen bay leedahay marka sida saxda ah waa aqeedada dadka in looga bilaabo aqeedatu awalan law kaanu ya'lamun haday ogaan lahaayeen aqeedada ayaa awala aqeedada ayaa laga bilaabo aqeedaduna afka mid in laga sheegta ma ahan yani dadka qaarkood afka aqeeda in iska yiraahdaan baa laga yaabaa laakiin aysan aqeeda dhab ah aqeedada dhabta maxay tahay qofku waa in cadamada rabbi subhanahu wa ta'ala alla weynankiisa qalbigiisa ay ku jirtaa oo ay ku weyn tahay alla waa inuu rumaysan yahay alla waa inuu yaqaanaa alla subhanahu wa ta'ala ya'rifu Allah ولذلك إلهي محوي القرآن كل شيء إنما يخشى الله من عباده العلماء ذاتك علمك عليه وألي يقانه ذاتك أيا الله كعب سبحانه وتعالى ذاتك علمك عليه وألي قرنية يعني وعب صدان إلهي محايا يعرفون قدره وعظمته قال ذي نوات إلهي كيري وما قدر الله حق قدره ألي قدرين تسيو نبتا هيد وصحدا هيد ما يسن قدرين markay waxyaalo aan laa'iq u ahayn nisbeeyeen ama waxyaalo ay sheegayeen waxa ma soo dajin diin oo kale ay yiraahdeen ala kulli xaal waxba inaan ku dheeraado ma rabo laakiin tawxiidka
وإن آدي آد لو دالا ألوهية توحيد الألوهية وكي هريي وعبادتي الله سبحانه وتعالى إخلاص أيا متقانا أيا مهمة وشرك يا شيخ وكسؤال وشكيي يعني ضد كيسا وإنه غف إخلاص لي ماذا وعبادته متقانا والله أبر احترام سبحانه وتعالى نوحى يعني إخلاص كضد كيسا شرك مثلا لو رنكلا شرك أصغر كاهو كلا شرك لما غيبوا شرك أكبر يا أصغر أكبر كوا متك الدين تدتك أي وبحان والله سبحانه وتعالى هدو غفك وحلو ذاتيو هديو الله سبحانه وتعالى ضد كلا ببع دقو الشرك التسوية ساس اللي يعني والله حلال السمون شرك وين أكبر كا سيدا إله ينقال دي وكنا في ضلال مبين إذ نسويكم بالرب العالمين مركا الله إذ لسي من ترني وأنه الله يغير كسي ترني مركا حان كسقنا في ضلال مبين مركا شرك وتسوية ضعوية وأنا أرنا هذه هذا دينتنا لوغا بخا كان كلا شرك الأصغر والرياء نبي الشرك الأصغر كاو حكوت المامي إنه يهي أخطر من فتنة المسيح الدجال ألا أخبركم بأخوف أو أخطر من فتنة المسيح الدجال الشرك الأصغر مركا وهو الرياء وأنا الرياء قوية استوستوسكا قفكو إنه مثلا صلاة مركو تكنيو حوغا هدو أركو داد إنه ميلا كده لو هنا وقرحنا يا هدو كليجي هنا وبوبسينا يا تكنيا صلاة قاد ولا بتكنيا صلاة قاد ولا سمعت قانين يعني وحوية مرك هراء وقت جاي كذا هنا جماعة لا تكنميان هذا ومرك تكنيانا كل بيتكنيان حتى اسكت جماعة سيئة وشوجا مدنا ما هالكسي وردينا ميا هذا ببسيس ينقر كنقر متقانا نقر الديك وكالتبو مركا تلك الصلاة المنافق تلك الصلاة حديث صحيحة والنبي كلها وإنه صلاة قف هادية وناكسن وتكذا دجن وإنه جماعة كنت كذا ماشى متقانا لوجن نادي مساجد وإنه هذا أنت أصلاً وحهلك معنا وحصمية ذاتك يعني الله سبحانه وتعالى عظمته قلبه يكون انتهي والله معرفة ولا قرنية الله محقق قرنية أسماء ديسة هي صفات كيس أي قف قرنية وتوحيد الأسماء والصفات مركل أيام كهل إن شاء الله وحرجينا موضوع عقيدة إنه أنت كسب بدنا هذا وآدي ومحاضرين أنت كفر بدن وقات رجينا إن شاء الله تعالى وأنا كل يريي أنت سكسو قبل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه